xiisadda bariga dhexe oo mar kale cirka gashay iyo weliba dagaalkii oo laysku baaba'ay iiraan oo soo riday diyaarad kale iyo weliba xuutigu maxay kaga dhigan tahay sacuudi arabiya in dagaalka xuutigu uu soo galo doorka imaaraadka iyo weliba sacuudiga sidoo kale haddii xuutiyiintu weerar ay ku qaadaan mandiqadda baabal mandab iyo xiritaanka halkaasi geeska afrika iyo soomaalida sidee saameyn ugu yeelan doontaa qodobadan iyo weliba madaxweyne Erdogan ayaa soo mari doona kuwa iyo kuwa kale waxaan hordhigi doonaa wariyaha rugcadaaga ahna madaxa TV-ga British Somali TV Cabdixafiid Maxamuud Jaamac qadka ayuu toos ugu jira isagoo ku sugan xarunta TV-ga ee magaalada London Cabdixafiid soo dhawow wararkii ugu dambeeyay xiisadda bariga dhexe halkee la kala maraya cabdiqaadir aad iyo aad u mahadsantahay adigii daawadayaasha oo meel kastoo dunida ka joogtaan salaan gobeed ayaan hawada u soo marinaynaa waxaana naga xasuusina codsin aniga shakhsi ahaaniga cabdiqaadirna uusan weydiisanin inaad channelka subscribe saartaan gambaleelkana furtaan idinkoo aad iyo aad u mahadsan dagaalkii haddii aan u soo jeensano cabdiqaadir waa sidaad u sheegtay waxba la iskulama harinin iiraan iyo maraykanka hameenkii shanaad ayay duqeymo toosa socdaan oo hadda xilligan aynu wada hadlayno barnaamijkan aynu ku guda jirno duqeymo ayuu maraykanku wadaa iiraanna dhankeeda kale baxrayn kuwait iyo weliba dowladda dalka jordan ayay duqeymo ayaduna dhinaceeda ay ka wadaa labada dhinacba waxay sheeganayaan guulo waaweyn iyo khasaaro ba'an inay geysteen isla mar ahaantaasna bariga dhexe dab ayaa ka baxaya xaaladuna waxay joogtaa meel aan la qiyaasi karaynin haddii aynu u yaro dhaadhacno aynu eegno weerarada iiraan ay sheegtay inay qaaday waxa ay sheegtay saldhig military oo ku yaala dalka jordan inay weerar ku qaaday halkaas oo markaas ay baagsatay xarunta communicationka ee militariga maraykanka oo sida iiraan hadalka u dhigtay ee dalka jordan iyo weliba laba goobood oo lagu kaydiyo shidaalka diyaaradaha ee fuel jadka la yiraahdo iyo kan gaadiidka kaleba ayaanu bartilmaameedsanay ayay yiraahdeen 7 askarina maraykanka dhegta ayaan dhiiga ogaga darnay waa dhinaca jordan cumaan iyo haddii aad idhaahdee baxrayn iyo kuwait haddii aad timaadid sida oo kale warbaahinta labadaas wadanba waxa ay sheegayaan diyaarado iyo weliba gantaalo inay iiraan kusoo weerartay gurmadka degdegana ay haatan isku dayayaan inay caabiyaan iiraan waxay sheegatay mar kale saldhigyada militariga halkaas inay weerar lixaadle ay ku qaaday oo laga kala yaacay maraykanku waxa uu sheegtay dhankiisa 4 markab oo la yiraahdo Sulaymani in uu markaa uu baabi'iyey burburiyey oo iiraan ay leedahay isla mar ahaantaasna magaalooyinka ku teedsan dhulxeebeedka iiraan galbeedkeeda in markaa koonfurteeda yiraahdee in markaas aad iyo aad maraykanku u burburiyey duqeyntaasna haatan ay socoto taliyaha ciidamada maraykanka ee taliska dhexe Admiral Brad Cooper ayaa sheegtay libin weyn iyo guul inay dagaalka ka gaareen uuna sii socon doono inta iiraan ay markaas aysan awood ay isku difaacdo awood ay wax ku weerarto aysan lahaan doonin Strait of Hormuz la furi doono khubaradu waxay leeyihiin weerar kastoo lagu qaaday iiraan laguma furi karo Strait of Hormuz maalin iyo labo iyo duqeyn iyo labo lagu qaaday kii hore ayaa fashil lagu guul daraystay weerarkii 28kii bishii labaad ee sanadkan ayaa isaguna miro dhalinin sidii loo rajeynayay oo xisaab khaldan baa la isku dhufsaday ayaa leeyahay kana kuwa kama duwana ayaa leeyahay xilligay doontaba ha noqotee 2 wiig 3 wiig kadib maraykanku inuu wada xaajool u diga roganaya ayay qiyaasayaan khubaradu haddii aynu eegno meelaha la duqeeyey waxaad arkaysaa xeebaha inuu aad iyo aad maraykanku uu u bartilmaameedsaday dhinacaas kore meesha jirta ee mashhad dhinaca kale ka xigta tahraan duleedkeeda ah waxaa la isweydiinayaa oo dood weyn ka taagan tahay weerarka halkaas lala beegsaday waa markii ugu horreysay ma Caspian Sea ayay soo mareen oo Azerbaijan dhinaceeday ka yimaadeen mise Bahrain Kuwait iyo wadamadan kale khaliijka ayay ka soo weerar tageen dood ayaa ka taagan khubarada militarigu ay leeyihiin labaduba waa suurtagal laakiin lama xaqiijin karo haddii Azerbaijan noqoto arrintu weji kale oo hor la ayay yeelanaysaa oo Azerbaijan iyo Iiraan ayay ka dhex tolmaysaa sida wadamadan haatan aynu ka soo hadalnay Iiraan dhanka kale waxa ay sheegtay Hormuz maanta gacantay ku haysaa waana midaysan weligeed sii dayn doonin horeyna ayadaa uga talin jirtay haatan ayadaa ka talinaysa
wax ka furfuri karaana ma jirto arrintaas Donald Trump waxay ogaga dhigan tahay wax walba ayay ogaga daran tahay maxaa yeelay Iiraan oo xaalad liidata dhaqaale ku jirta go'doon ku jirta shidaalkeedii aan beec geyn karaynin ayaa Israa'iil iyo Maraykanku ay soo weerareen maantana Professor Robert Pape waxa uu leeyahay waxa ay Iiraan ku sii saqinaysaa quwadda afraad ee adduunka inay noqoto meesha Israa'iil ay hoos u socoto markastoo dagaalada noocaan ay dhacaanna dowladda xooga badan oo dagaalka soo qaada ee qabta hore ku horeysa ayaa libinta koowaad hesha dabadeedna kuwii lasoo weeraray ayaa iyaguna gacan sarreeya oo kuwii kale ayaa hoos u dhaca halkaas ayay xaaladdu maraysaa ayuu leeyahay professorka caanka Robert Pape cabdiqaadir uu ku darso intaasoo keliya ma ahan Iiraan waxay kaloo sheegatay dhowr diyaaradood oo kuwa MK9 la yiraahdo in ay markaa ay afka ciidda u dartay oo markaas reconnaissance diyaaradahan diyaaradaha sirta xuraabiya oo siday u duulayso ayay u sheegaysaa maraakiibta iyo diyaaradaha kale goobaha ay bartilmaameedsanayaan oo videogay duubayso live ayaa loo daawanaya dabadeedna halka ayaa laga hagayaa dagaalka ayay sheeganaysaa in ay markaas ay soo riday tii koobaad iyo tii labaad ma ahan laakiin su-aasha weyn ee biyo kama dhibcaanka maanta taagan waxay tahay Donald Trump laba mid ayuu yeeli doonaa tolo waate inuu Iiraan libin u ogolaado iyo inay guulaysatay sida Professor Robert Pape uu qabo oo uu markaa kala soo baxo ciidamadiisa gacantana Iiraan u taago dagaalkana uu soo gabagabeeyo laakiin uu isku caano shubo yiraahdo odaygeedii waa dilnay agabkoodii military waa burburinay awood ma lahan taas oo markaas aan saliya raad lahayn Iiraan waa dagaalamaysaa uu isku caano shubo Iiraanna waxay tiri nuclear samaysan maayo Iiraan MBT-ga ayay ku jirtaa ay saxiixday marka arrin cusub ma aha taas waagii Obama tiri fadwo ayaa dul taala meelay tiri waxaan ku samaysanaynaa nuclear ma jirto sidaas awgeed Trump inuu dhabahaas ka baxo dagaalka soo gabagabeeyo uusan ku guulaysan karin sida khubaradu ay qabato iyo inuu ciidamo dhulka gudaha uu soo geliyo Iiraan oo dhimasho dhaawac iyo burbur ay markaa halkaas ay ka dhashaan dhinaca Iiraan haddii aan lahayd iyo dhinaca Maraykanka askartaas oo la qabsado ama la dilo ama maraakiibtaas oo la dhaawacana dagaalka inay sii ballaariso unbay keenaysaa oo meel loogaga noqdo malaha ayaa leeyahay cadaadis ayaa la saarayaa oo la leeyahay ciidankiiba qaran laga laayay markabkeenii baa la dhaawacay tusaale ahaan ama caskar baana laga qabsaday iyadoo commander chief waa inaad guul keentid dagaalka hore u gal maamaada mayga waxay tirahdaa oo banaar galaaso si weylan u tiimboy cabdiqaadir waa gartay aada u mahadsan tahay macluumaadkaaga qiimaha badan iyo weliba sida faahfaahsan marka aadka quruxda badan aad markaas noogu soo gudbisay waxaa soo baxday saacadihii ugu dambeeyey ciidamada Maraykanka inay rabaan inay qabsadaan jasiiradda Abu Musa oo ka mid ah jasiiradaha laga maamulo marinbiyoodka Hormuz oo Iiraan ay ku xooggan tahay bal ka waran istiraatiijiyad ahaan jasiiradaasi haddii ay isku dayaan qabsashada Maraykanka suurtagal ma u tahay Iiraan maxay dhaawac u geysan kartaa ma difaacan kartaa bal ka waran tallaabadaas jasiiradaas iyo Kish Island iyo Hashim Island iyo meelaha Iiraan ay Maraykanku aad u weeraro weeye Bandar Abbas laftigeedu magaalo aad u weyn ayuu laftigeeda weeraraya Abu Musa haddii aan maabka aad u eegno dhinaca Imaaraadka ayay jirtaa waana jasiirada aad u yar ma qabsan karaa Maraykanku awood muu leeyahay yes wuxuu qabsan karaa Bandar Abbas oo ka weyn wuxuu qabsan karaa awood u leeyahay iyo khibrad intaba jasiiradahoo dhan su-aashu waxay tahay cabdiqaadirow isweydiinta leh inuu qabsado wuu awoodaa ma haysan karaa waana halista ugu weyn ee Donald Trump uu wajahayo oo markaas inuusan qabsan karinin ayaa la sheegayaa sababtuna waxa ay tahay uusan u haysan karinin qabsan karin maaha uusan u haysan karinin waxa weeye Iiraan buuraha dhexdooda ayay gantaallo kuga soo weeraraysaa jasiiradahaas ciidanku go'doon bay gelayaan saadku hadduu ka dhammaado halis ayay gelayaan laakiin ciidamada eliidka ee Maraykanka ee commandoska ee Maraykanku uu ku dhaarto khibrad ahaan agab ahaan aqoon ahaan tayo ahaan jasiiradahaas iyo ka badan ayay qabsan karaan ma haysan karaan waa su'aal kale weeye waqtigaa macallina kuma maqla cabdiqaadir kuma maqlo waa gartay haddii maabka aanu fiirino marka la eego jasiiraddan
waxay markaasi ku taallaa sidaadba hadda aad sheegtay goob muhiima markaasi oo imaaraadka ay soo xigtaa 60 kilomitir ayaa la sheegay halka 70 kilomitirna dhanka Iiraan ay markaasi jirto markaasi jasiiraddan halkaasi ciidamada dalkaasi Iiraan waxaan ognahay in ay ku go'doomayaan halka laakiin waxaa jooga dabcan sida ciidamada dalkaasi Iiraan haddii ciidamada Iiraan ee Mareykanka halka ay ku degtaan oo ilaa intee la ma haysan karaan waqti dheer ma difaacan karaan mise waxa la leeyahay sidii kuwa kale ay uga baqayeen ayaa dhici karta waa $1 million question ma haysan karaan waa su'aasha biyo kama dhibcaanka imisay haysan karaan jasiiraddan markaad eegtay badda dhexdeeda ku taallaa meesha ugu dhowaa dalka imaaraadka dabcan weerarka Iiraan ay kaga soo qaadayso meel aad iyo aad u fog inay go'doon ciidamadaas galayaan saadku ka dhammaanayo aysan meeshaas joogi karinin ayuu sheegay markaas sargaal sano horay si aad uga tirsanaan jiray oo la yiraahdo Larry Johnson waxa uu yiri way degi karaan laakiin ma joogi karaan oo ma haysan karaan muddo dheer marka dagaalkan soo socda kii hore inuu ka xoog badan yahay ayaa la sheegay duqeyntu ay ka badnaanayso agabka la isticmaalayo ay ka badnaanayso laakiin haddana uusan 40 maalmood gaaraynin 3 week ayaa ugu badnaan la qiyaasayaa in uu socon doono laakiin 3 week ayagu taladu kama go'do waa Mareykanka maxaa yeelay markuu dagaalku bilowdo dagaalku waa bilaabi kartaa laakiin masiirkiisa iyo gabagabadiisa ma hayn kartid sidaas awgeed inuu sii dheeraado ayay Iiraan doonaysaa ayuu qabaa Malcolm nin la yiraahdo oo markaas horey u ahaan jiray militariga Mareykanka ka tirsanaan jiray oo hadda aad uga faallooda arrimaha bariga dhexe ee dagaalka marka sidaas awgeed wuu sii daba dheeraanaya dagaalku Iiraanna way dagaalamaysaa waxa uu korreelkaas hore uu leeyahay sargaalkaas hore uu leeyahay Iiraan waxayba rabtaaba dagaalku inuu sii dheeraado Donald Trump la gaarsiiyo bisha November iyo doorashada oo ku guuldaraysto ujeedada ka dambaysa waxay tahay Iiraan waxay rabtaa ayuu leeyahay inaysan xalaq mareen noqonin oo madaxweynayaashii hore ku dhici waayey Donald Trump in ay markaas ay si fiican u meeshan siyaasad ahaan iyo dhaqaale ahaan uu ugu jabo oo dhiigbax dhaqaale iyo siyaasadba uu ku dhiigbaxo isla mar ahaantaasna raad xun uu ka raaco iyo taariikh mugdi ah ayay rabaan ujeedaday ka dan leeyihiinna Trump ka argooso kaliya maahan Britain lidinku soo degdegin ayay khubaradu leedahay Cabdiqaadir waa mahadsan tahay 4 cisho ilaa 5 cisho ayay duqeymo ku soconayaan gaar ahaan deegaanada aad sharaxday ee dhanka xeebeedka oo laga maamulo Maribiyoodka Hormuz 4 cisho ka hor ama 5 cisho ka hor ilaa iyo waqtiga markaad fiiriso awoodda Iiraan ee maamulka Maribiyoodka Hormuz ma waxba isbedelay mise sideedii Iiraan iyada maamulaysa Hormuz marka aad warbaahinta caalamka aad eegtid Donald Trump wuxuu leeyahay anaga ka talino maraakiib ayaynu ka saarnay halkaas ayaanu ka gudbinay ka tilaabsiinay laakiin markaad eegtid maritime traffic oo Trumpna ka madax bannaan Iiraanna ka madax bannaan waxa ay leeyihiin maraakiibtii ugu yarayd ayaa 5 maalmood halkaa ka tilowday markaad eegtid telefishinka Sky Newska waxa ay leeyihiin Sky Loba Trump waxa uu sheegayo waxa halkan ka taliya Iiraan waa say hadalka u dhigeen marka Trump halkan kama taliyo laakiin maraakiibta dagaalka ee meesha uu soo dhaweeyay waxa lagu soo waramayaa inay doonayaan ciidamo inay gudaha geeyaan laakiin halkan Iiraan ayaa ka talisa halista ugu weyn ee Iiraan uga imaan karta Strait of Hormuz Mareykanka ma ahan ayaa la leeyahay waa dowladda dalka Cumaan weeyaan ee jaarka yihiin oo haatan labalabaynaysa markii hore mowqifkooda waa cadda Iiraan iyo ayagu inay Strait of Hormuz maamulaan ayay rabeen iyo sidoo waliba wasiirkooda arrimaha dibadda Badr sheegay uu yiri markaas canshuur kama qaadayno toll booth waxa la yiraahdo laakiin khidmad ayaanu ka qaadinaa sida Turkiga uga qaado iyo kuwa la midka ah oo kale khidmadaasna anaga kala qaybsanayna waana adeeg loo fidinayo maraakiibta arrintaas Iiraan aad bay u soo dhaweysay markay sidaa yiraahdeen wixii ka dambeeyay si toos iyo si dalbanba dowladda Mareykanka ayaa cadaadis weyn saartay haatan waxa muuqata in aan la hubinin haddaan tusaale ku siiyo daawadayaasha sharafta badan aan xasuusiyo maalintii Sabtida ee soo dhaafnay barqadii waxa ka degay dalkaas Cumaan magaalo madaxdiisa ra'iisul wasiirka arrimaha dibadda dowladda dalka Iiraan Abbas Araghchi oo shaki ka qabay dowladdaanu inay liqliqanayso oo aysan sidii hore aysan ahayn
isla habeenkii sabtidana cumaan ayay duqeeyeen way u duqeeyeen because cumaan waxay arkeen inay ka leexatay dhabbihii iyo wixii laysku ogaa marka xaaladdu halkaas ayay maraysaa meesha keliya ee iiraan awooddeedu hadda ay taallaa waa Strait of Hormuz dowladdaas keliya ogolaatay in dhinaceeda la maro ayaana wiiqi karta ayadana iiraan waxaa ka go'an hadday dhinacaa u badato inay digada ka dhigi doonto ayay ogtay sida kuwa kale cabdiqaadir waa mahadsan tahay haddii aan u gudubno waxaa markaasi aanu arkaynay maalmihii ugu dambeeyey arrinta ku saabsan xuutigu inuu markaasi soo laba kacleeyey islamarkaana dagaalka toos usoo gelayo isku horimaadyo ayaa ka socda deegaanka Joof iyo weliba qaybo kale oo xukuumadda Cadan ay maamusho oo xuutiga la sheegay inuu kusoo duulay Sacuudigu waa uu duqeeyey oo airportkii Abha waad ogeyd oo saacadihii ugu dambeeyey xitaa shaqadiisu ma shaqeynaynin sidii la rabay dhanka koonfurta dalka Sacuudiga waqti xaadirkan maxay uga dhigan tahay in dagaalka toos oo usoo galo xuutiga سؤال آدي أدو وناكسون يا عبد القادر لكن وحين كلو جعلها سؤال كلو أو بربر تالو وليس كذا يدنا إن داو ضياش أنه حسوسينه ييدنو وجرتا حوت من دقالك صوغلو يا كدام بي أرنتا دياردي كتكتي صنعة كتكتي آدي آسكي آية الله على خميني سعودي قوة لابد يكون يشاني طبانكي إلا يحاتن أيانا سيدين أغنى هاي مركز sacuudigu uu mamnuucay diyaaradu inay sanca ku soo degtaan oo ah dhinaca xuutiyiintu ay ka taliyaan meesha Cadan dowladda la intiraafsan yahay ay ka taliso fariid haddaba diyaaraddaas waa ogaa inay tagtay soo noqodkeedii muxuu u diiday sacuudigu waxaa jira warar soo baxaya oo leeyahay Iiraan ayaa hub ku soo qarisay xuutiyiinta loo waday laakiin wax cadayna oo sacuudigu uu soo bandhigay ma jirto laakiin wararkaasu way isu soo tarayaan safiirka sacuudiga u fadhiya qaramada midoobay ayaana sidaa ka yiri kulankii u dambeeyay qaramada midoobay marka waxaa halkan ka socota ayaa la leeyahay waxaa la rabaa code waa sida hadalka loo dhigay sacuudiga aad ayaa loo daneynayay xisaabtii la isku dhuftada ayana ka mid ahayd si Ibrahim Accord loo hirgeliyo Iiraanna markaas loo sii fogeeyo in sacuudigu uu dagaalka Mareykanka iyo Israa'iil uu kala qayb qaato oo waa la qiyaasiyay inuu Iiraan ay weerarayso wadamada bariga dhexe gaar ahaan khaliijka oo ay sheegtay inay haamaha shidaalka ceelasha shidaalka ay gubi doonto sidaas awgeed sacuudigu waxa uu ciyaaray istiraatiijiye aad iyo aad u culus Maxamed bin Salmaan waxa uu diiday dagaalka inuu ka soo qayb qaato oo sunni iyo shiica arrintu aysan noqonin oo markaas Iiraan aysan sidaa go'doon ku gelinin waxa uu arkayay haddii arrintaasu ay dhacdo oo sacuudigu dagaal ka soo qayb qaato markab uu sacuudigu leeyahay ka tilaabi maayo biyaha Hormuz iyo weliba maranbiyoodka Baabul Mandab oo xuutiyiintu ay kulaalaan sidaas awgeed ayuu go'aankaas u qaatay marka sacuudiga go'aankiisii hore waa saxsanaa ayaa leeyahay maxaa hadda isbedelay waxaa lagu soo warramayaa in markaan haatana arrintu ay ka duwan tahay kadib markii Iiraan ay tiri diyaaraddu waa tegaysaa Yaman ama diid ama doon Abbas Araachi ayaa soo dhigay bartiisa Twitterka aeroboortka Abbaha ee dalka Sacuudiga koonfurtiisa ku yaala oo gubanaya waxa uu kaloo bartiisa Twitterka soo dhigay sidoo kale weerarro xuutiyiintu ay ku qaadeen Sacuudiga waxayna ku tusaysaa sida loo kala fogaanayo marka xuutiyiintu hadda inay soo rogaal celiyaan Iiraan ayaa ka dambaysa ayaa la leeyahay oo signal u dirtay waxa ayna og tahay code dagaal weyn oo ku soo socdo waxaana arrintaas u sheegay oo sirtaas u soo gudbiyay ayaa la leeyahay sida wararku ay hadalka u dhigayaan Ruushka iyo Shiinaha oo dhaqdhaqaaqaas la socda oo sirtaas ayagu markaas soo dusiyay laakiin Maxamed bin Salmaan wax badan iskama bedelanin cabsi uu ka qaba aeroboorkaas in hub la keeno iyo diyaarado iyo u caga jugleynayay asagiina waa tan la weeraray asaguna waxbuu weeraray oo aeroboorkii oo gubanaya aragnay sacuudigu ma sheeganin aeroboorka Sanco inuu asagu weeraray laakiin xuutiyiintu waxay yiraahdeen dowladda Cadan fadhida caalamka uu qoonsan yahay sacuudiguna uu taageero awood ay gantaaladaas oo kale ay nagu soo weerarto malahan arrintaas sacuudiga ayaa ka dambeeya waxbayana hadal kugu daalin Cabdiqaadirow Maxamed bin Salmaan waxaa muuqata ayaa leeyahay inuu xoogaa ka walwalay
diyaaradahaas marka gantaaladaasu digniin bay ahayn laakiin dagaal ma rabo ku darso intaasoo keliya maahan dowladda iiraan waxa ay la hadashay wasaaradda arrimaha dibadda iiraan ayaa waxay la xiriirtay dhigeeda sacuudiga qatar iyo bakistan waxa ayna sheegtay haddii inay la hadlaan maraykanka oo ay maraakiibtiisa uu dib ula noqdo oo colaadan soo cusboonaatay ee maraykanku habeen walba uu duqaynayo kadib hameenkii isniinta xagga lasoo dhaafay markii iiraan 3 markab ay markaa burburisay ay markab aan idhaahdee ay duqaysay 2 kalena ay ku xijisay wax yar kadib ayuu maraykanku soo rogaal celiyey marka almuhiim sacuudigu in maadaama ay la hadleen 3 wadan wasaaradda arrimaha dibadda ay la hadashay inay maraykanka xakameeyaan haddii uu diidana waxay yidhaahdeen ogaada annaguna waxaanu xiraynaa baabulmandab iyo Strait of Hormuz oo xirma iska daa inay xirmaan xuutigu hadday hal markab ay madfac ku ridaan maraakiibtoo dhan waa kala yaacaysaa albaabada ayaana isugu dhufanayaan halkaas taasi waxay keenaysaa 25% shidaalkii caalamkii Hormuz marayay iyo 10% ilaa iyo 15 halkaan marayay inuu istaago dhaqaalaha adduunkana uu burburo Donald Trump arrinuu xamili kara ma ahan taageero caalamka ogama helayo already NATO ayaa dagaalka ogaga baxlo tirano kuma jirno artikelka 5 ee netana halkan kama shaqeeyo dagaalka adiga Netanyahu aqaadeenna waa mid aan sharcigana waafaqsanayn isla mar ahaantaasna annagu aanan ka qayb qaadanaynin waana sababta Donald Trump oo NATO 24 saac u aflagaadeynayo marka dagaalka xuutiga barbaranka kale oo wato waxa weeye annaga ayay jalisna leeyihiin haddaan nahay qoyska Soomaaliyeed awoodeenu waa yartahay dagaalada laga soo baxaya xaaladda ilaahay baa og marka maranbiyoodkaasoo xirma annaga dhibaato weyn ayaa noogu jirta mideeda kale xuutiyiintu gantaalo ayay haystaan ay dhibaato fara badan ay ku geysan karaan oo iska daa dalkeena hooye ilaa iyo Israa'iil gaara marka khatartaasuna waa mid taagan oo xaqiiqatan annaga walwal nagu haysa haddaan nahay Soomaali Cabdiqaadir waa gartay runtii aad iyo aad baad u mahadsantahay sida qiimaha badan markaasi aad uga faallootay isla markaana aad usoo bandhigtay xogaha aan caadiga ahayn ee kuwa muuqday kuwa markaa qarsoonadaha gadaashiisaba ugu dambeyntii waxaan ognahay saacadihii ugu dambeeyey hadalhayn badan inay ka dhalatay hadal ama khudbaddii madaxweyne Erdoganka dalkaasi Turkiga hadalkiisu maxaa keenay in hadalhayn ay ka dhalato maxaase uu ula jeeday laba arrimood waa marka koowaad Cabdiqaadir sidoo hadalka u dhigay ayaa dhaliyay hadalhayn exactly sidoo u qoray hadalkaas hadaan sheegno waxa uu yiri from Gaza to Lebanon Somalia to Syria Ankara to Sudan meel kasta oo qof ilmeynaya uu joogo ama madaxa foorarinaya oo markaa la dulmiyey gacanteenu waa gaadhaa oo meel kasta ay joogaan waanu isku fidanaynaa garbaheena ayaanu ku fidanaynaa ayuu leeyahay dhowr arrimood oo muhiim ah ayaa ku jira halkaas hadalkiisa fartiin siyaasadaysan ayuu dirayaa xilli Turkigu wuxuu ku soo aadayaa walwalna uu qabo in dagaal lagu soo qaado dhinaca kalena Turkigu uu aad iyo aad isku ballaarinayo agab military uu soo iibsanayo 80% asaga uu samaysto culida labaad ee ugu weyn NATO uu yahay marka Turkigu dawlad sahlan ama ilig liiqliiqanaya ma ahan ama lagu soo duuli karo bal Iran ayay ka awood badan yihiin dhinaca kale marka laga eego waayahay dhinaca militariga marka laga eego maadaama uu yiri waa isballaarinaynaa ayaa walwal laga qabaa oo qaar ka mid ah siyaasiyiinta Israa'iiliyiintu waxay leeyihiin Erdogan wuxuu rabaa inuu nahareeyo Syria hadday noqon lahayd North Cyprus haddii ay ahaan lahayd oo Mediterranean ka dhacday isku muuqdaan Israa'iil hadday ahaan lahayd badda cas hadday ahaan lahayd oo haatan Sudan ay markaa deked Ottoman Empire-kii uu maamuli jiray ay haatan 199 sano oo markaas contract ay ku qaateen inay sii joogaan halkaasna ay saldhig ka samaystaan Soomaaliya oo saldhig military ay ku leeyihiin Muqdisho gudaheeda dhinaca kalena haatan mid kale la doonayo in la dhiso uu Turkigu isballaarinayo Turkiga Soomaalidu waa ku kala qaybsan tahay Soomaalida koonfurta marka laga reebo maamul goboleedka Puntland qaybtooda siyaasadda ma aha inta kale Soomaalidu waxay u aragtaa Turkiga dawlad wanaagsan oo dantooda ka shaqeynaysa oo ummadda Soomaaliyeed isoo gurmatay Somaliland markaa eegtid aad ay uga didsan yihiin waana arrin hore u soo jirtay
oo ku saabsan markaas midnimada iyo Turkiga qadiyadiisa iyo mowqifka uu ka taagan yahay. si kastaba ha ahaatee dhinaca kale Turkigu waxa uu sheegay meel kasta oo cid walbana ay joogto in ay markaa tegayaan, wuxuuna afka aad ugu adkeeyey madaxweynaha dalka Turkiga Erdogan tacdiyadaha Israa'iil ay ka geysanayso marinka Gaza iyo weliba daanta galbeed la haysto, aadna waxa uu u xusay ubadka yararka ee la laynayo. waxay arrintan ku soo aadaysaa dhinaca kale xilli qaramada midoobay toddobaadkii la soo dhaafay warbixin ay soo saareen ayna sheegeen Israa'iil waa say hadalka iyagu u dhigeen inay xasuuq ba'an oo arxan la'aan ay ka geysatay marinka Gaza, haatana weli ay si gaara carruurta u bartilmaamaysanayso. Israa'iil ayaa dhanka kala sheegtay arrin markaas blood libel ah oo aan sal iyo raad haba yaraatee lahayn. Cabdiqaadir, aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay. kaasi wuxuu ahaa wariyaha rugcadaaga ahna madaxa TV-ga British Somali TV oo runtii si qiimo badan oo aad u qurux badan uga faallooday islamarkaana muro dhowr oo ku saabsan bariga dhexe iyo weliba geeska Afrikaba na soo hordhigay, weliba si markaasi maqali muuqaala noo tusinayay wax badan oo markaa ku saabsan siyaasadda iyo weliba falanqaynteeduba. runtii Cabdixafiid Maxamuud Jaamac, madaxa TV-ga British Somali TV, aad iyo aad baan kaaga mahadcelinaya waqtiga qiimaha badan. intaas ay go'aan Ingiriiska laga badiyay. runtii de horta waa inaad ii hambaleysa bay ahayd. habeen hore anigu waan kuu hambaliyey, waxaan ku iri niyo waan kuu hambalyeynaya, waa qirtay qiro markaaga dhulka in lagugu jiiday. anagu guul baan gaarnay hadda halkaas soo gaarnay Ingiriis haddaanay saaxiib. maxaad gaarteen hadda sanadkii 1966 baa idinku dambeysay inaad qaadaan koob adduun. sanad kastana waxaad tidhaahdaan warqad baad soo qaadataan iyo boorar oo it's come home tiaad lahaydeen, inta la qabtay baa la jeexaawo. aflagaadadu waa meeshaada. laakiin waa xaqiiq soo maaha, way xanuun badan tahay laakiin waa xaqiiq. waxbana lagama badin, waa soo rogaal celinayna geel ciyaal qaaday wey. oo weli waa ku taagan tahay 4 sano kadib hadda ma dhow jiilkan hadda waa duqoobayaan haddii la yidhahdo waxa waaye taa dee lama sugayo. aad iyo aad u mahadsantahay Cabdixafiid. guuleysa. intaan ku kulmi doono daawadayaal barnaamijkan mid lamid ah waa dhammaantii oo isku duban oo idin leh nabadiina.